nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living, maxaynu u noolay? What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysanno fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ila mataacu اlguruur. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay naf waliba way geeriyoonaysaa. noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha. mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa nicmatin waa tegaysaa baa layidhi. wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinayaa, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bedhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan naf mooda. walidaalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareedoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo dayn halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugayo waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su'aal, haddaad xanuunsanayso waa su'aal, haddaad xoola haysato waa su'aal, haddaad faqri ku jirto waa su'aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaan oo dhamme macnaha qurhe looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin imtixaamo. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka imtixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idinkana in laydin imtixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu imtixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa.
وعبادة وقهر الرئيسة وهي إنسانك بفطرته بين هذا أي عابديه لكن وحل وقوي تحامي لمن توجه العبادة إليه عبادة يا ضغي منسى إلهنا القرآن كوحكوت المامية تتكبر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ما ركت كور رمبان ربي لي كون إله هذا كردكت وحي عابده يا وحي نفته ضدونته نفتيس وحي أي دونته كستو كردكت أيها الإخوة مركا وحي لنا نولشان إنو جوجنا يدو قول كلام ماله نولشان إنو جوجنا وامتحان امتحان كاسنا جوابتي سر رسمي أدونك بعضا منها إن لقوه رمرية ولا غيابة نوع من العقابات إليك وقلنا عواصر تقل نوع من النعمة إن تشواصر تقل لكن وبيت اوف ات معها جوابتي الرسمي وإنما توفون بالليل أجوركم يوم القيامة وحبال لقاسي يدوني ده انت تشوكتي بوزيتيف يا نيجاتيف كو دونا بها هذا لكن يدو الرسمي واحد جوابته ليس بالليل محي يوم القيامة ولذلك مقياس كو وحين لين يقوش الرسمي قاهي ما ها هبل با لعك علي ما ها هبل با عرور بدن علي ما ها هبل با مدحوينية مقعية ماموس علي وحصل ما حباشا مركا تكتعيدي كويدين ميسو وردوني دي محاد كتب محاد حول الشري محاد ضدي عرور كتب محاد مقعية ماموس كتب وحلقوا ويدين يا أسئلة maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiyay alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarkaaga lagaa rabaa inaad dhiibato identitygaaga waa saddexdan su'aalood waxaad kaga jawaabto man rabbuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah kaas baa ku ah idgaaga rasmiga jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa صدرت با إلهي وحلي سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وحقوا ليستي ليباني من زكاها نفتا قفك طاهرة قفك النظيفية يحمها كنظيفية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللي الرسول كسعيد راعضة أي قول ليستي قول وين بان رب إلهي سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذا القرآن كو عدو فائزين كو شيغا يوردن وأعماش آخرة دتك الليل القرآن كو وحا فوز عظيم الشيغا يوردن وآخرة دتك قوليستي ميزان كفوز كريلا هي وحوين يدي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة لأن نلاشنا سيدا بوفهم دad inuu nimi waa dad tani uu muuqdo dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u sameynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya yana sidoo kale inuu u fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax wala aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhira ka jira muxuu ilaahay agtiisa gooya muxuu janno ka tara muxuu naar ka gooya والنار بيجا فوقيني يمسي وانكو دعيا هداد وحيرتين هذا آخرة بدباده أنت الفايز هديسي آخرة بدبادي ويدو دوني ده وحكا استوى نقضه خسارة كسوكنت إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى إنه حقا ينوافجيه كوان حوقه ذو خسارنا وينغيره آخرية دونك ودبكوي ربي وهقاجيه إن ربي سبحانه وتعالى ينغيره صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم